waxa uu ahaa Thaabit bin Nucmaan wiil alle ka cabsi badan oo jeclaa inuu cilmiga kororhsado, laakiin waxa uu ahaa faqiir. Maalin ayuu ka soo baxay gurigiisa isaga oo gaajo aad u daran hayso, uusan haysan wax uu cuno, ilaa uu ka soo gaaray waddo ay ku taalo beer aad u weyn oo ay ku dhex yaaleen geedo tufaax ah. Waxa ay indhihiisa qabatay laan ay ku dhegnayd tufaax. Kadib naftiisa ayaa waxa ay u sheegtay inuu cuno tufaaxa. Kadib waa uu soo jaray haaf ayuuna ka cunay. Kadib waxa uu cabay biyo webi uu ku yaalay beerta dhinaceeda. Markaa kadib ayuu xasuustay arrinta uu sameeyey gaajo darteed. Waxa uu yidhi, hoogaagii Ibnu Nucmaanow, sideed u cuntay midho aadan adigu lahayn, weliba aadan lagu fasaxin? Waxa uu ku dhaartay in uu halkaa ka tegi doonin ilaa uu ugu sheego ninka beerta iska leh si uu uga dalbado inuu xaliyo arrinka tufaaxa. Kadib waxa uu helay gurigiisa. Waa uu gargaraacay. Marka uu soo baxay ninka beerta lahaa waxa uu weydiiyey waxa uu doonayo. Waxa uu ku yidhi, Thaabit bin Nucmaan, waxaan galay beertaadii, waxaan ka qaatay tufaaxan, waxaan ka cunay haaf. Waxaan doonayaa inaad iga cafiso khaladkan aan galay. Ninkii beerta lahaa waxa uu ku dhahay, wallaahi kuma cafin doono, bal maalinta qiyaamo ayaan ku qabsan doonaa Ilaahay agtiisa. Waxa uu bilaabay wiilkii inuu ooyo oo uu cafis ka baryo. Waxa uuna dhahay, diyaar baan u ahay inaan kuu shaqeeyo, laakiin iska kay cafi. Wiilkii waa uu sii waday baryadii. Ninkii beerta lahaa waa uu sii farxayay, waa uuna ka dhaqaajiyey. Thaabit ibnu Nucmaan waa uu sii daba socday isaga oo tuugaya ilaa uu gurigiisa galay. Kadib bannaanka guriga ayuu iska fadhiistay isaga oo sugaya inuu ninka beerta lahaa ilaa salaadii casir. Ninkii marka uu soo baxay waxa uu arkay wiilkii oo halkiisii fadhiya, ilintana ay ka daadanayso. Wejigiisa ayaa nuur ku siyaaday. Markaa ayuu yidhi, adeer, waxaan diyaar u ahay in aan beertaada ka shaqeeyo anigoo waxba ka qaadanayn, laakiin iska kay cafi. Kadib ninkii beerta lahaa waxa uu yidhi, wiilkaygiiyow, diyaar baan u ahay inaan ku cafiyo, laakiin shardi waa inaad guursataa gabadhayda. Thaabit waa uu ka naxay jawaabtaas iyo shardiga, wuxuuna dhahay, waan guursanayaa. Ninkii waxa uu dhahay, gabadhayda waa indhoole, waxba ma aragto, waa dhagool, mana hadli karto, waxna ma maqasho. Waqti fog waxa aan raadinayay qof aan iyada ku aamino, kaasoo ku aqbalo sifooyinka aan soo sheegay. Haddaad aqbashid, waan ku cafiyey. Mar kale ayuu Thaabit ka naxay arrinka kadiska ah. Waxa uuna bilaabay sidee buu ugala noolaanayaa gabar sifooyinkaas leh isagoo dhalinyaro ah. Sidee bay iyadu howlaha guriga ugu soo baxee iyadoo sidaa ah? Waxa uu bilaabay Thaabit ibnu Nucmaan inuu ka fakaro mashaqada heysata. Kadib ayuu ogaaday dhibaatada gabadhan iyo adeegideeda ay uga khayr roon tahay in uu naarta u galo tufaaxa uu cunay dartii. Wuu aqbalay guurkii isagoo Alle subxaanahu wa tacaala ajir ka kasbanaya. Waxa uu u tagay ninkii beerta lahaa waxa uuna yidhi, waan ogolahay gabadhaada. Ilaahay waxa aan ka baryayaa inuu niyaddayda ii aqbalo. Ninkii waxa uu ku yidhi, ballanteenu waa Khamiista si uu guurka u dhaco, aniga ayaana ku kafaala qaadaya meherkeeda. Markii la gaaray maalinta Khamiista waxa uu yimid Thaabit isaga oo murugaysan, uma ekeen caruus maalintiisa ay tahay. Waxa uu is yidhi, sidee baan ula aqal galaa qof aan hadli karin, aan waxba arki karin, aanan wax maqlaynin? Laakiin Ilaahay ayuu tala saartay, wuxuuna yidhi, laa xawla walaa quwwata ilaa billaah. Albaabkii ayuu garaacay. Aabbaheed ayaana ka furay, gurigana ku soo dhaweeyey. Waxa uuna ku yidhi, wiilkaygiioo ku soo dhowow xaaskaaga, Ilaahay dhexdiina ha yeelo barako. Gacanta ayuuna ka qabtay. Waxa uuna geeyey qolkii ay gabadhiisa fadhiday.
markii uu albaabkii furay waxa uu arkay gabar diyaarsan taagan oo isaga sugayso kuna dhahaysa assalaamu calayka waraxmatullaahi wabarakaatuh. halkiisa ayuu taagnaa Thaabit isaga oo yaaban. waxay la noqotay inuu hortaagan yahay mid ka mid ah xurancaynta jannada, taasoo dhulka u soo degtay. waa uu rumaysan waayey waxa uu arkaayo, ma yaqaano waxa dhacay. muxuu aabbaheeda hadalkaa ugu sheegayay? waa ay fahantay waxa uu maskaxdiisa ka guuxayo. way u tagtay wayna salaantay. waxa uuna u sheegay hadalkii aabbaheeda ku yidhi. aabbahay run buu sheegay. aabbahay waxa uu igu tilmaamay inaan hadlin, maxaa yeelay hadal xaaraan ma dhihin, mana la hadlin nin aan xidhadiisa ahayn. dhagool inaan ahay, maxaa yeelay meel dadka lagu hanto ma fadhiisanin, iyo indhoole inaan ahay, ma fiirinin nin ajnebi iga ah. waxaan ahay gabar madi ah oo aabbaheed keligeed ka dhalay. sannado badan ayuu nin wanaagsan ii baadigoobayay. markaad u timid adigoo cafis ka dalbanaya oo ilmeynaya, ayuu yidhi. ninkii tufaax darteed u baqay baa gabadhayda ilaah uga cabsanayaa. aniga xaaskaagii ayaa noqday, aabbahayna waxa uu noqday nasabkaagii. sannad kadib waxa ay dhashay gabadhan wiil markii dambe ka mid noqday hogaamiyaashii islaamka soo maray. waa alimaam abi xaniifa bintu nucmaan oo lagu xasuusto mabda'a fiqiga. يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.